مدحوينه ku-xigeenka dowladda Puntland mudane Cabdulxakiim Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey gudoomiye ku-xigeenada golaha baarlamaanka golaha wakiilada culimada ganacsatada dhalinyarada haweenka ciidamada qalabka sida ee Puntland qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah qaar saxaafadda fanaaniinta shaqaalaha dowladda Puntland iyo dhammaan mutasharrifta kale ee maanta naga soo qayb gashay caawa naga soo qayb gashay dabaaldega sanad guurida 16aad ee Puntland mudanayaal iyo marwooyin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan leeyahay ciid mubaarak iyo hambalyo ku aadan 1 August 2014 waxaan rabaa marka hore inaan sheego maadaama maanta ay ahayd jimce oo waqti shaqaaluhu ay fasax ahaayeen ay ahaan lahayd naga soo aaday sanad guuradiinii berrito waxaan ku dhawaaqayaa inay tahay shaqaaluhu ay fasax yihiin sharaf weyn ayay ii tahay in xafladan aan ka soo wada qayb galno aad ayaan mahad ugu naqayaa inta soo abaabushay iyo inta naga soo qayb gashay iyo inta la daawanaysa waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxaan soo gudbinayaa hambalyo iyo bogaarin mudanayaal iyo marwooyin laga soo bilaabo aasaaskii Puntland iyo maanta Puntland ay 16 jir qaangaar ah tahay waxaa la soo maray marxalado kala duwan marxaladahaas oo loo helay xalal kala duwan ee ka tarjumayay waqtiga iyo dareenka markaas jiray 16 sano kadib Puntland waxay yeelatay dowladnimo ay u dhan tahay garashadii iyo dareenkii ay ku xigsan lahayd wixii ay hadda haysato si waafaqsan dastuurkeeda kuna haadsan lahayd wixii ka maqan mudayaan iyo marwooyin lafdhabarta ugu weyn ee Puntland isku haysa waa shacabkeeda had iyo jeer u heelan dhismaheeda si joogto ah kana dhiidhiya wixii wax u dhimaya jiritaankeeda anigoo haddaba ka faa'iidaysanaya fursaddan qaaliga ah waxaan shacabka reer Puntland ee gudaha dalka iyo dibadda gaarsiinayaa inaan idin ognahay dareenkiina saliimka ah ee ku aadan midnimada iyo wadajirka Puntland iyo kan ummadda Soomaaliyeedba mudanayaal iyo marwooyin dowladnimada Puntland waxay ka kooban tahay shacabka iyo xukuumadda talada dalka la gudbaa waqtiyo kooban xukuumadda waxaa ka saaran mas'uuliyad inay fuliso wixii hawl ay la wadimaday shacabka waxaa saaran mas'uuliyad ah inay gutaan waajibaadka qofka muwaadinka ah laga doonayo iska ka qaybgalka hawlaha dalka bixinta cashuuraha iyo dhowrista shuruucda guud ee loo siman yahay ayagoo la xisaabtamaya mas'uuliyiinta xilka u haya si joogto ah waxaa hubaala haddii dhinac walba oo bulshada ka mid ay gutaan waajibkooda in la helayo dowladnimo iyo dal taabagal ah kuwaas oo buuxiya dhammaan sifooyinka laga rabo si xilkasnimo ah iyo wadannimo lehba haddaba saan u helno dowlad tayo leh oo u adeegta shacabkeeda xukuumaddu waxay gacanta ku haysaa waxyaabaha soo socda ta koowaad waxaa weeye tayaynta ciidamada qalabka sida waxaan kor u qaadaynaa tababarada ciidamada waxaan ka haqabtiraynaa agabkooda waxaan mas'uuliyad dheeriya iska saaraynaa daryeelkooda ciidamadku waa inay leeyihiin astaan qaran waa inay ka dheer tahay astaan qabiil hubka beeruhu isu haystaan waa in loo wareejiyaa difaaca xabadda aad ka badbaadiso walaalkaa waxay kayd u tahay cadowgaaga waxaan macaabay guddi ka soo shaqeeya tirinta iyo dib u habaynta ciidanka hawshoodu meel fiican ayay maraysaa
labo kobcinta dakhliga dawladda iyo ururinta canshuuraha bariga waa public finance management reform mudanayaal iyo marwooyin dal iyo dawlad waxay ku horumaraan bixinta canshuuraha haddaan canshuur la bixin amni la heli maayo haddaan canshuur la bixin caafimaad la heli maayo haddaan canshuur la bixin waxbarasho tayale la heli maayo haddaan canshuur la bixin jid wanaagsan la heli maayo haddaan canshuur la bixin biyo macaan la heli maayo puntland kuma tiirsanaan karto doondu way ka timaada puntland kuma tiirsanaan karto ganacsi ku kooban kadyar oo kooban canshuurta oo la bixiyaa waa waajib diini ah waxayna faraya wadaniyadeenna iyo damiirkeenna qofnimo waxaa baarlamaanku ansixiyey buugga dhimista iyo dib u eegista canshuuraha taxation framework waxayna wasaaradda maaliyaddu si xawli ah u bilaabi doonaan qaadista canshuuraha beriga waxaan rajaynayaa in gacan buuxda lagu siiyo waajibaadkooda qaran saddex dib u eegista tayada shaqaalaha dawladda Puntland civil service reform shaqaalaha dawladdu waa howlfuliyaasha bulshada waxaa laga maarmaan ah in kor loo qaado xirfadooda iyo aqoontooda shaqaalaha dawladda waa lagu qoraa laguna ruqseeyaa sifa cadaalada oo sharciga waafaqsan shaqaaluhu waa in tiro ahaan iyo tayo ahaanba sax yihiin baahida shaqaale iyo tiradoodu waa inay iswaafaqsan yihiin shaqaale tiro badan oo tayo xun Puntland anfici maayaan waxaan magacaabay guddi ka soo shaqeeya dib u habeynta shaqaalaha dawladda si loo yareeyo loona saxo shaqaalanimadooda waa in la helaa tirada saxda ah iyo shaqaalihii saxda ah ee loo baahnaa afar tayeynta iyo dib eegista cadaaladda mid qofeed iyo mid deegaaneedba dadka reer Puntland waa inay kalsooni ku qabaan hay'adaha cadaaladda cadaalad darradu ama ha ahaato mid run ah ama ha ahaato mid qofka ismoodsiiyey waxay keeni kartaa hoos u dhac kalsoonida dawladda lagu qabo cadaalad darradu waxay horseedi kartaa colaad iyo fawdo Soomaaliya waxay ku kala maqan tahay cadaalad darro Puntland waxay ku horumari kartaa ku badbaadi kartaa markay cadaalad isku dhaqdo markii dadkeedu dawladdeeda aamino dib u heshiisiin iyo turxaan bixin muddiga ku kala jira beelaha shacabka reer Puntland ay ka kooban yihiin Puntland waxaa lagu dhisay heshiis bulsho heshiiskaas ciddii jabisay raaligelin baa laga rabaa ciddii wax tabanaysa cafis baa laga rabaa dawladda dowrkeedu waa inay dhowrtaa heshiiska bulsho qof kasta oo reer Puntland yihi waa inuu qanacad helaa kuwa hooleeyay boosaaso waa in isku si ugu qancaan dowladnimada Puntland baran iyo baargaal waa inay u sameeyeen horumarinta adeegga arrimaha bulshada in lagu wada qanco nidaamka dawladnimo ee Puntland waxay adkeynaysaa midnimadeena wadajirkeena isjacaylkeena isdhexgalkeena mudanayaal iyo marwooyin arrimahaas aan korkooda ku xusay waa howlaha aan dhexda kaga jirno meelmarintooda insha Allah waa ku guuleysan doonaa waxay aasaas u yihiin dhammaan howlaha kale ee hor yaal ee isugu jira mid bulsho mid siyaasadeed iyo mid horumarineedba si aan la wada socono burcadbadeedkii waa jabeen maantana waa shacabka reer Puntland shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ugu bishaareynayna inaysan jirin hal markab ama dooni lagu hayso badda ku taal xuduudda Puntland waxay ku timid dadaal xooggan iyo iskaashi caalami ah oo guday waajibaadkooda si wada jira nasiib darro dhalinyaradii wali waxay ku dhimanayaan balaha iyagoo tahriibaya waxaa socda dadaallo badan oo tahriibka lagula diranayo laguna wacyigelinayo dhalinyarada inay ka joogaan halaagan ku sugaya badaha caalamka waa run dalku ma laha shaqooyin kaafin kara baahida shaqo la'aaneed jirta balse ay dhibta ka horeeya dhalinyarada oo ah 85% inay ku dhibaatoodaan tahriibka la joojiyo tahriibka hala joojiyo halaga hortago kuwa ka shaqeysta hala soo qabto sharcigana hala horkeeno kuwa ka shaqeystaahi kama duwana kuwa maalin walba qaraxa iyo dhibka ka shaqeeya waxaan dhalinyarada ugu baaqayaa inay dalka naftooda iyo allaba ay aaminaan mudanayaal iyo marwooyin safarkii dheeraa ee dalka gudihiisa aan ku maray waxaan ku soo aragnay in Puntland tahay dhul aad u ballaaran
وقريئة أن أوليهين لما استعمال وقرته وما اسكو لاتا هدي شطلو يا ورشقين بديسن لولا شيء هي استراتيجي لوغا فايديسن لها خيرات كاسبهين dowladda Puntland waxay diyaar la tahay barnaamijyadii iyo ka shaqeynta xiriirka looga faa'iideysan lahaa horumarinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka dalka sidoo kale waxaan safar shaqo ku maray dhowr dal oo aan darisnahay ujeedadu waxay ahayd adkeynta iyo joogteynta xiriirka aan la leenahay wadamada aan dariska nahay dhammaantood waxaan isku afgaranay in aan ka wada hadalno kuwaas oo qaarkood ay bilaabayaan mashaariic horumarineed ee lagu xoojinayo xiriirka saaxiibtinimo iyo ganacsi ee aan wada leenahay mudanayaal iyo marweyn Puntland waxa siyaasadeeda u ah udubdhaxaad inay kula noolaato wadamada iyo gobolada Soomaaliyeed aan dariska nahay xiriir wanaagsan oo ku salaysan iskaashi iyo daris wanaag cid kasta oo wanaag noola timaada waanu celinaynaa sida ay si ka wanaagsan meesha ay nooga timaado dulmi iyo dandaasi si fiican bay nooga warheriyaan jawaab saxa oo munaasira bay naga helaysaa waxayna Puntland ka qaadan doontaa abaarta kaga toosan gobolada Soomaaliya iyo Sanaag aanu inaad arrimaha gobolada maqan Puntland jiritaankeedu ma dhammaystirmaayo inta dhulkeedu maqan yahay waxaan ka saarayaan muwaadin kasta oo reer Puntland soo celinta dhulka xoog lagu haysto maqnaanshaha sool wuxuu meel ku dhax ku yahay masiirkeena umadeed inta yareecada u adeegaysa ee sadarafada meelaha kale u joogta waxaan leeyahay iimaanka Allah ku jeliso waxay haystaan wax ka fiican annaga ugu bedelaynaa dalkooda ha ku soo bira arrimaha Soomaaliya haddaan wax yar ka yiraahdo Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay hoggaan u cadaalad fala iyo dawladnimo dalkeeda u adeegta dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa isku baahi waana isku masiir dhammaantood waxay u baahan yihiin caafimaad waxay u baahi qabaan waxbarasho iyo biyo macaan waxay tabayaan amni iyo kala dambeyn waxay u hiloobeen dawladnimadoodii sida doqonnimada ah ay isaga burburiyeen dhowr 20 sano ee la soo dhaafay wuxuu ahaa casriga horumarka iyo internetka intaan isku jeednay baasaageen horumaray adoon meel kale aadin bal dariskeena eeg bal Djibouti eeg bal Ethiopia eeg bal Kenya eeg waa nasiib darro 55 sano dowladnimadii kadib in loo soo diro Burundi Sierra Leone inay la kala celiyaan ambaartaasina ku taal waxaan lagu dhigay qabyaalad waxaan naga dhigay qolo cidna u shaqeyn waxaan maqli jiray asaaga ka har habar ma dhaafo وهالكي والله نحرستي أبوان عبد محمد أمين وكلها نقول كذا وقتي جوا وهسا ويري dadkina la gudboona dayaxu guure nabadeel gargaarsaday la gaarimaye duulaystayaalow geediga wada xiriirka dawladda dhexe madaxweynaha iyo marwooyin waxay Puntland u taagan tahay wada jirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waxay dhiigi dhacaanba u hurtay sukaanideeda iyo dibiyuulalida qarannimada Soomaaliyeed waxay mar walba diyaar u tahay inay la yeelato dawladda dhexe xiriir waartinimo oo ku dhisan is-ixtiraam iyo isqadarin waxa marar badan lagu joorfalay nidaamkii dawladnimo nidaamkii awood qaybsi nidaamkii qaybsiga deeqaha dibadeed waxa lagu dulmiyay qorista tababarka iyo agabaynta ciidamada qalabka sida waxay Puntland dugsatay oo mar walba dugsanaysay dulqaad waxay diiradda saaraysay waxa aan wadaagnaa inay ka badan yihiin waxa aan isku diidanahay waxaan mar walba isku maaweelin jirnay iyada isa sii doonta xukuumadaydu waxay aad isugu dayday inay soo dhaweyso lana shaqeyso dawladda federaalka ee jirta maxaa yeelay
marna ina cuntanay in wixii aan wax ka soo dhisay anoo mas'uul qarana ay sahal ku burburto waxaan mar walba ku fakarayay in mas'uuliyadda Puntland iga saaran mid la mid ah iga saaran tahay Soomaaliya waxaan aad uga xumahay in waxaan xiriireynay si kala loo tarjumay ilaa la isku dayay in la carqaladeeyo jiritaanka Puntland wixii xamar ka dhacay 3 bisha Luulyo way ahayd mas'uuliyad darro Puntland waa warshadkii federaalka Soomaaliya waana soo dhaweynaysaa cid walba oo samaysanaysa ismaamul ku dhisan dastuurka dowladda federaalka waxna aan u dhimayn maamulada hadda jira haddii la isku dayo in wax la dhisaa joogtay wixii hadda jiray la carqaladeeyo waxay keenaysaa burbur hor leh ee Soomaaliya oo si kala fogaata Said Qaran baa laga sheegay miyir waxaad ku weydaan iswaal kuma mahibtaane muslim kuma cadiisado wallaan madaxa ka goyne guweel ma dhaafi allo mooska yaan jabinin inaan malab rakale loo shubshibi wax uga miireeyo magowsha haddaan leega siin maax la dhuranayo oo meesha taagnahay anoon muran dalaysiinin oo waliba mool iyo salaan ugu madignaado saddex magac alle xaajada layma marsiyo ما دمايرين وحيجي ساهد قبان ما ولع هدي الله تعمار في كأرورو وولي لقي لمن هدي مقع ولا جاني خد وحن كم معمول أغان أما كم معموسي مسئنا من نهاي أو كلمة مرتين نوت هاي ولينا كجمع العضة ميرس ديدنية مسألة نيمان إيدجي بدك ما صارايو نيك أنيجا يوم ما نكره وما مرابيش أنا سكت وعن إلهي ورجينا إن أغسطان هذا كاي ونقول قالسية دمانتين خرمر وذكر عدالة يمنه هذه هذا المسنتين